assalaamu calaykum. waxyaabaha ugu badan ee qofka insaanka ah bedela waxaa ka mid ah murugada, dhaqaalaha, xiriirada, dhaqanka iyo duruufta nolosha. noloshu waa sida dugsiga oo kale, mararka qaar waa inaad fahantaa casharka maanta si aad beri ugu dhaqanto. marka aad rabto inaad laba qof kala xukunto, hal qof uun ha dhegaysan, balse labadooda si isku mid ah u dhegayso. haddii aad rabto inaad ahaato qof faraxsan, wixii tegay meel isaga xir, maantana sida aad tahay uun ku dhaqan. daacadnimadaada waxaa laga yaabaa inaadan saaxiibo badan ku helin, balse saaxiibada aad daacadda ku heshay weligaa kaama tagayaan. nolosha ku joogsan mayso ruux la waayo, laakiin sidii hore si ka duwan ayay noqon doontaa. ha eegin, hana ilaalin dadka waxay haystaan, si aadan u waayin qiimaha inta aad haysato. maanta hawsha wanaagsanna aad qabato waxay gundhig u noqon doontaa shaqadaada beri. inta badan alla wuxuusan jecleen ayaan samaynaa, haddana waxaan jecel lahay ayaan weydiisanaa, misena eebba weyne wuuna siiyaa, maxaa yeelay alla wuuna jecel yahay.